kaniisada keenta intiinaan deena naga wareysta wadaada dharka laga bixiyo culummo ah ilaahay wajigi meesha caafimaadka Nairobi adaa kala heeday wadaadada qaylada ka dhacays qolka laga galay dharka laga bixiyo xaniyaha lama joojiyo ilaa waa sheekh xaniyaha lama markaas wadaadada gabdhaha jilbaabka qaba naaga sawaaxiliyo xoog intaas leegantay qolka la gala naasaha hoostooda jug xudunta hoostooda jug markaas markaas ku responsible iskula jira naga daaya ooyinta joojiya ooyinta warwaad niridaysa rafaadkaas soo marnaa sharma boy oo dhalinyaro 20 jira ka sheekeynaysa kaniisadana soo dhuufiyana kaniisado John Paul Chol warqad yiriisa intuu xandoof ku soo tafaaliire waa ducaysantiin hore soo ninka dhahay kaniisad baa sharm bay qaaday iyo codkaan wada dhigsan adi Afrika tagaa marka hore meesha gawriga maana saas sheegay عبد الفتاح بالشاوي نصب بناندقي ويل للي ويلك ويلشا صاحب داعد نمدك وهرانكو إرويليغا سومالي نمو I love you مدحا إيسارن تاعدي انتو كوغو حري انتو كوغو سو حرمي دون طبو ويل داعدانكو إرو أفكيسا عانا يمالبو كدو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دجب ربايل كاغا بلشاوي سار جوجل قلب مقعيسة صبار بقوركا واساب يا وايا بلشاواتيغا صبر kasta ay ku tahay wanaagsan fadlan hadii markuu ugu horeysay channelkayga soo booqan sax shamada kaga codsanay like subscribe share iyo comment intaas oo dhan waxay ii tahay dhiirigelinta la ama fikradaas in comment igu soo qor sidoo kale Instagram-kayga soo booqato saaci waan kor ku soo aragteenba muuqaalka maanta inoo hayo waa muuqaal runtii aan ka aamus waayay taas oo ah been abuur iyo been iyo propaganda aniga adduunka la been baa u nacba runta waa ku dhimanaya runtan waa sheegaya arintan muuqaal hore ayaan ka soo hadlay oo sida u jiraan xaqiiqadeeda waa ka soo hadla laakiin haddana waa la qodqodaya dad baa waxa weeye kilada fartiga gelinayo qodqodahay oo raba inay warga keenaan laakiin waa dul maraya xaqiiqadana waa inay taabanaya intaan u gudbin muuqaalkan baan daawanayna waxay leeyihiin odayga Sharon Boy wuxuu qaaday kaniisad kaligiis ma aha ninkan Abdulliiban la yiraahdo dad baan ba fikirka la qaba oo qaarkood culimo u eg saa hore muuqaalka ugu soo sheegay culimo maalka culimo u eg oo yiri Sharon waxa qaaday kaniisado marka sharaxaada ereygaas way dambeynaysaa bal muuqaalkan wada daawano Sharma Boy kaniisada keenta intiinaan deena naga wareysta wadaada dharka laga bixiyo culummo ah ilaahay wajigi meesha caafimaadka Nairobi adaa kala heeday wadaadada qaylada ka dhacays qolka laga galay dharka laga bixiyo xaniyaha lama joojiyo ilaa waa sheekh xaniyaha lama markaas wadaadada gabdhaha jilbaabka qaba naaga sawaaxiliyo xoog intaas leegantay qolka la gala naasaha hoostooda jug xudunta hoostooda jug markaas markaas ku responsible iskula jira naga daaya ooyinta joojiya ooyinta warwaad niridaysa rafaadkaas soo marnaa Sharma Boy oo dhalinyaro 20 jira ka sheekeynaysa kaniisadana soo dhuufiyana kaniisado John Paul Chol warqad yiriisa intuu xandoof ku soo tafaaliire waa ducaysantiin hore soo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ninka hadalkan dhahay horta aduu san Sharma aqoon u lahayn muuqaalkan kama jawaabeen laakiin waa nin Sharmaysi qanaan Liiban ama Abdulliiban sida u taqaanaanba marmar waxaa jirta xaalad markay jirto oo kaamiraduhu ku hayaan in asxaabtaada social media ku jira la hadasho aad tiraado war maanta kaamirada ay haya maanta waa lagu kacsan yahay ka jeediya dadka wala jeedin kara wax loo jeedin kara mawjadad been loo saari kara wax la oran kara saas wax u jireen Sharma markay kaniisada qaadso ma gaal ba mise waa khaniis ileen waxay qaadaan qoladan kaniisada qof gaal ah oo yiri anu soo muslim wadan Soomaaliya jooga gaal baan ahay gaalnimada waa ku waxa weeye waa ku noolaan waayay wali cunsuriya dilbal ugu hanjabay kaasoo kale kaniisada gaalada way qaadaan ninka khaniiskan gaalada way qaataan kaniisadu labadaasna Sharma midna maaha see mar ku dhici kartaa ilaa Sharma inta soo istaagay anu gaal baan ma oran dib wixii urku ugu jiray Ilaahay ba og laakiin daarka anu ka hadlaya khaniisna ma ahano de meel lagu fuulayo anagu ma ana arag dib wixii qorsan Allahu a'lam Ilaahay ba og laakiin wax daahirka baan ka hadlaynaa marka in la yiraahdo kaniisad baa qaaday markii airportku ka digayay aaway nimankii kaniisad maxay iman waayeen ilaa markii qofkan qof uu qaadayo
waa inay airborka yimaadaan. airborka waxaa imaanaya qofkii keenay kaniisadii gaala meesha joogtay ma joogin, gabdho iyo dumar iyo dad Soomaaliyeed baa joogay. laba masala mid hadalkan Abdiliibaan inuu noqdo hadal loo soo dhiibay iyo inuu yahay mid labaad ah inuu saan min xog badan haya. marka horey aan waaga hadlay Sharma cidda geysay Mareykan iyo sidoo ku tagay waxa geysay gabadhaas u dacwootay walaashiis ah ayadana Mareykan geysay waxaan lagu qaaday waa ninkayga ahaan waana sababta aan u sheegay gabadhii walaasheena ahayd ee Muliimaanka ay sababta ku baxday ee sababtaas ahayd. okay anu markaan wax rabo inaan ka hadlo ama wax sheego badanaa waxa weeye wax aanan cadeynteed ahayn ma soo bandhigo anoo waxyaabaha qaar cadeynteed iyo xogteed haya baa haddana ka aamusa oo aanan soo bandhigin. marka bal codkaana dhegeysta ilaahay baan ku ninka dhahay kaniisad baa Sharma bay qaaday iyo codkaan wada dhegeysan. adi Afrika tagaa marka hore meesha gabadhiga maana saas shiya. okay Afrikaan tagaya gabar baa igu imaanaysa gabadhaas waxa weeye xaflad baa la dhigay aroos yar mirmir meesha lagu dhigay waxay ahayd Zambia iyo Mozambique bay ahayd. Zambia doortay Sharma. Zambia arrin baa ka dhacday wuu soo baxay Djibouti baa kiiska loo wareejiyay dacwadda ilaan kiiska safaarad wadanka meel Mareykan wadamo badan bay safaarad ku leedahay meesha artid baa waxa weeye u gudbin ka dhaca dacwadda kiiskaaga saarda Zambia maadaama arrin ay Sharma ka qabsatay uu ka soo wareegay Djibouti waa loo wareejiyay Djibouti waa lagu dhameystira. gabadh baan u timid gabadhaas xaflad baa loo dhigay muuqaalkii waa haya xataa xafladda iyo kii arooska oo lagu dhigay kulli waa haya laakiin ayaa waxa weeye fasax ma qabo waayo waxa aan badanaa soo gudbinayo iyo codkan hadda dhageysanaysaan waa wax aan aniga aan fasax u haysto. marka anigu waxaan ka hadlayo waa xaqiiqo waa run kelmad been wallahi oo billahi taala baan ku diray Sharma markaa Sharma been ba ku sheegay saaxib qorkum boqor Cabdifataax Bulshaawi nasab banaan degi wiil lalay wiilka wiilasha saaxib daacadnimada u haraan ku iri weligaa Soomaalinimo I love you madaxa ii saaranta aday inta kugu xiray inta kugu soo xirmi doontaba wiil daacadaan ku iri afkiisa caana iyo malabo ka doo. marka arrintan waa been kaniisad baa qaaday kaniisadu ninku gaal ma kaniisna ma labaas la qaadaa haddii mid kale ay kaniisad qaadayso maxaa awal dhan loo qaadi waayo intaas sano muqsho joogay wadanka joogay maxaa loo qaaday sababta loo qaado maxay tahay warkiiskan dacwadda mar soo socday wuxuuna ka soo bilowday markuu muqsho ka soo tagay sanad iyo maasaadu soo damijinmay haddana ilaahay soo fududeeyay. mid kale waxaan ka ilaaway intaan muuqaalkan duubi haddaan soo xasuustay ninka saaxiibkeena ahaa walaalkan Sharma ka Cabdillaah Sharma isagana TikTok-giisa hawadu ka maqan yahay maanta hawada laga saaray ilaahay waxaan ka baranay inuu TikTok-giisina uu ilaahay u soo celiyo. xogaha aan helayna waxay ahaayeen in inta ka badan la damacsan yahay oo dhan personal iyo dhan ka YouTube-ka Instagram-ka waxyaabo badan baa ogahay oo soo gaaray Mareykanna de marka loo fiiriyo amni ahaan muqsho ka amni fiican ba Mareykan waxa weeye hubka caadi suuqyada lagu gadaa meelaha artir gangiska waxa Soomaalidu nag iska dhigtay weeye xaaladeedana waa halis. Sharma marka waxaan leeyahay saaxiib cashar waxa ka barataa muqdisho wixii ka dhacay waxa cashar ka bartaa wixii gaalkacay ka dhacay waxa cashar ka bartaa wixii Zambia ka dhacay waxa kale cashar ka bartaa wixii Garowe ka dhacay laba habeen oo xigta soo xasuuso hadalkaas waxaan leeyahay dadka inay fahmaan mar hore laakiin inay fahantaan rabaa tii Garowe gaalkacyo muqdisho iyo Zambia wixii kugu qabsaday inaan Mareykan isku qabsanayn moodin oo waliba Mareykan ay ka daran tahay hadalkan meenigu qora Sharma kuma sii nagaan doono Mareykan waayo afartaas waxa weeye ku ekaan way oo yani waxyaabo badan kala kulmay xaggaas ay suuq jooga waad kaanaysaa. marka kolba ciidda mas'uuliyadda marka qaadi doonta bay u taalaa oo markaas meesha uu tagay bay u taalaa ilaahay marka waxa weeye dhibtoota ka ilaaliyo laakiin u mareen mayo. okay arrintan marka waa saan sheegay gabar baa ka xaysay gabadhaas oo ku tagay waana sababta walaasheen Muliimaan ee halkaas ka baxday. gabadhaasna waxa weeye ilaahay dulqaad buu siiyay samir buu siiyay maanta inta soo fariisato walaasheen Muliimaanka ma dhihi karto Sharma waa saas ama waa saas ma dhihi karto sababkoo ah nin cabtooy ah bi u gashay xaniyuhu qabtay wallahi oo billahi oo tallahi waan dhaartay maanta inta Muliin soo fariisato inay Sharma xaq sheegi karin laba kalmood aan dhihi karin sabab jira ogood asaguna ogi annaan oga iyadoo og tahay dad yar oo kooban dabcan arjinayna og yihiin sababkoo ah qof waxa weeye tiluka inta markay ku dhacday soo fariisatay asbuuc ayadoo ka maqan social media maalin kale soo fariisatay oo leeyahay maxaa wajh kaaga dhacay tirbajaaj baan ka dhacay inta loogama haray inta loo soo fariisay kiniyaal baa cunto ilmaha iska soo dirtay noocaas aflagaada ah kaaga si daran leeyahay haddana shaki baa jira waxa weeye niman kale xaafadda ii daba maray ilaahay baa inuu ku dhashay qof bahdilka inta loo geystay oo weli aamusan ma aragteen intaas family iyo qoysas soo aragteen ma aragteen waxba jira waxa jirana
مليون بيكو حرانتا لكن واحد قرن لها وحوي نفط المر ببحثها عيبنا الله مر انتو waxa ka baqaysid iyo waxaas dhanna qofka cadeyn kara ama cid cadeyn karta waa garan kartaa markaan wax qoran lahaa hadaa la isaasan ku qoosanayo ku samriyana falillahi alhamdu sharman wallahi billahi to la gabadha saxniyo qabtay waxyaabaha aan raali ka ahayn bay aan raga waxa weeye waa kaaga helin karaa cadow waa kula dagaalami karaa laakiin dumar markay timaado gabar ku talnay ah oo miskiin ah oo waxa weeye tilo ka dhacday ilaaha baan gura tameenkii waxa weeye wixii dhacay garowe asagana ima sheegin laakiin dariska laga soo waca magaalada garowe oo raftaha xaafadii guriga saaxiibka maanta waxa weeye cabaadkeeda baxaya subaxin wixii dhacay waxa social media dhan la wada ogaa marka si kasta ahaataba waxaan leenahay hambali aan ku leeyahay noloshaada cusub iyo arooskaaga cusub iyo hawlahaaga cusub hambali aan ku leenahay hore ugu soco tiktok-gaagan allaha kuu soo celiyo cadowgan allaha kaa qabto casharna ka baro Zambia iyo Muqdisho iyo Gaalkacyo iyo Garowe waxyaabihii kala kulantay Mareykanna waa meesha ugu dambeysay adduunka la tago aakhira markaad tagtid adduun baa kayn Mareykanna ma imaan lagama yeeliyo waa beenta marka waxaan qoran lahaa walaalo isku badnow waxaan kaloo waxa weeye leenahay dadka beenta sheegaya oo dhahaya kaniisadaha qaaday iyo xagga ka dhacday waa laba misla mid dad uu sharmi leeyahay kaamirada ugu furan bar xagga laga jeediyo iyo in qof aan xog badan ahayn aan xogta aan hayo ma arkay boqolkiiba ay tahay waxa soo mariga boqolkiiba hal 99 waa keediya sababtoo ah waxa weeye hadaan waxyaabaha qaar aan soo bandhigo ama aan ka soo dhigo oo maqli muuqaala waxaan aaminsan xataa in inta ka fogaanayso arrinta noqonayso arrimo beerood arrimo qabiil inay noqon doonto aan aaminsanahay saadaradeed waxaan isku dayaa inta waxa soo dhastur karo inaan astro oo qariyo oo aan keediyo waxyaabaha aan soo bandhigay arkaysana waa waxyaabaha fasax oo haysta maahane waxaan fasax oo haysan ma soo gudbiyo marka dulmiga gabadha walaashay ah anu waxa weey midaan ku raacay ma ahayn laakiin niraga saarta ka yeel imsa dar ala soo wax weey kula dagaalamay naf imaal imsa fanaaniin iyo youtuber aan waxba iga gelin oo saaxiibo dadka igu dhow aan darta kula dhiman ma milaayin sida daradeed dumar sheekada kuma jirin hadii gabar timaado dulmi waxa weey ar macaan kontonley ah hooyo weey wayna dhashay wayna la dhasheen waan guursanaa ayaga maanta waxa weey sababkooda ka joognaa 9 bilood ba urnigu soo sideen sida daradeed 9 bilood ba calashnigu soo sideen marka dulmi kama gali karno khaladna kama gali karno halkaana laga maqlay qof dumar ah weligii anoo jaafeenay ama wax ka sheegay laakiin tan waxay igu noqotay runtii wax nolosheeda ku cusub marka intaas muuqaalka ku soo gabagabeeyay inta muuqaalka muuqaalka kun doon waxaan ka tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh فتح بلشاوي 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 بلشاوي فتح بلشاوي عبد الفتاح بلشاوي عبد الفتاح بلشاوي فتح بلشاوي عبد الفتاح بلشاوي عبد الفتاح بلشاوي